weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa saaki aroortii hore lagu qaaday xarun uu gaalkacyo ka degnaa Sheekh Cabdulle Shaacali cilmi yar oo ka mid ah wadaadada sida weyn ugu yaqaan gobolka Mudug isla markaana ku caanbaxay soo saaridda dhalinyaro qaada dib lagu waray muusig qaraxa kadib ayaa la sheegay in gaari taagnaa goobta ay ka soo degeen ilaa 4 qof oo huweysnaa kuwaas oo bilaabay toogasho ay ku diliyeen raggii xirtu ah Sheekh Cabdulle iyadoo dad goobjoogayaal ay xaqiijiyeen raggii galay xarunta ay markii hore ay toogteen Sheekh Cabdulle Shaacali cilmi yar oo xilliga weerarku bilaawanaya ka soo baxay qol uu degnaa iyadoo intaas kadib raggii huweysnaa ay u gudbeen qayb kale oo shiiqa u lahaa halkaas oo ay ka bilaabeen toogasho kale waxaana goobta ay ku dileen ilaa 3 ka mid ah haweenkii ku sugnaa goobtaasi intaas kadib ayaa waxa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa danab iyo kuwa ka socda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo dagaal la galay raggii weerar ku soo qaaday xaruntii uu degnaa Sheekh Cabdulle oo gudaha ugu jiray iyadoo dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada iyo raggii gudaha ugu jiray xarunta uu qaatay muddo hal saacadood kadib markii saraakiisha ay sheegeen in la toogtay 3 ka mid ah raggii gudaha ku jiray isla markaana ay gacanta ay ku dhigeen mid kale in ka badan 18 qofood oo ay ku jiraan 3 ka mid ah raggii weerar ku soo qaaday xarunta ayaa ku geeriyooday weerarkii maanta ka dhacay xarunta uu degnaa Sheekh Cabdulle iyadoo ay ku dhaawacmeen tir inta ka badan Cabdicasiis Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee Galmudug ayaa sheegay mid ka mid ah raggii weerar ku soo qaaday xarunta ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada waxa halkan ka dhacay saakay ismidaabin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen talada sharwadayaasha ahayd markay ahayd saacadu 12kii subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelihii dagaalku aan kula galnay baan ka raadinaynaa aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacab ah degan guryahoodii ay bam dala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ciidanka walaajo iyo booliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan hal nin oo dambeeya dhaawac ayaanu haynaa hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa nool liibaan markaa saraakiisha doctor Kota ma hayno degmada sidoo kale nin shacab ah ayaa liibaan markaa saraakiisha hadlay miyay sheegeen tirada ragga hubeysnaa ee gudaha u galay xarunta halka uu weerarku ka bilowday iyadoo gaariga uu kula qarxay gudaha magaalada mana jiraan khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi guud ahaan waxaa burburay xarunta shiiqa iyo gurigii ma jiraan marka dad gudaha xarunta laga soo badbaadiyay